Marka mobilkan imika aan hayo gacanteeda ku hayo waxaad aragtaan inuu ku xidhan yahay password. Si aan uga jabiyo marka waxaan sameynayaa si casharkeennii hore aad ku aragteen mobilka ka laga daaro iyo ka codka laga gaabiyo ayaan isla qaban doonaa. Labadoodan hayn doonaa marka ka foqi maayo ilaa shaashadda ay dinto. Hadhow shaashaddu markay dinto waxaan gacanta u beddelayaa ka laga dheereeyo codka anoon ka foqayn kan laga daaro mobilka. Sidaas ayaan u hayn doonaa. Imika waad aragtaan waa ku guuleysanay wuxuuna keenay marka shaashaddan. Marka waxaan sameynaynaa markaan rabo inaan hoos u socdo waxaan taabanayaa kan laga gaabiyo codka. Markaan kor u soconayana waxaan taabanayaa ka codka laga dheereeyo. Hadhow ku dhufashada ama okayda booskeeda waxaa ku jira kan laga daaro. Marka meesha laga dhaqo mobilka waxaa ku qoran wipe data factory reset. Taasaan marka laga gaabiyaan ku tegayaa oo aan joogaa marka wipe data factory reset oo ah kan laga dhaqo. Marka si aan ugu dhufto okayda waa inaan hal mar taabto ka mobilka laga daaro. Kadib wuxuu weydiinayaa cancel iyo in aan dhaqo mobilka. Hoos waxaan uga degaynay ka laga gaabiyo codka hal mar baan taabanayaa. Kadib mobilka okay haddaan idhaahdo ama ka laga daaro mobilka aan taabto. Sidaas ayaa lagu dhaqayaa marka. Kadib waxaan leeyahay reboot si hadhow mobilka loo soo daaro. Waxaan taabanayaa ka laga damiyo mobilka ama laga daaro ayaan taaban doonaa. Sidaas ayuu marka mobilka ku soo kacayaa oo uu noqonayaa mobil diyaar u ah in passwordkii laga jabiyay. Kadib waxaynu u gudbi doonaa wejiga labaad ee shaqada taasoo ah in mobilkan marka oo gmailkii ku jiray uu galo aynu ka jabino gmailka. Markan mobilkeeni passwordkii waa ka jabmay waynu ka furnay waynu ku guuleysanay. Waxayna xigtaa stepkii labaad ama talaabada xigtay oo ah inaynu ka furno gmailka ama google accountka. Waxaa khasaba marka hore in computerka aynu isticmaalayno uu ku xiriirsan yahay internetku kayga hore aan ugu soo xidhay oo internetka uu joogaa. Marka waxaan rabaa in mobilka laftirkiisa aan internet ku xidho. Haddaa wireless helaysid wirelesska waa caadi. Sidoo kale haddii aad haysatid mobil kale waxaad u furan kartaa hotspotka. Imika waxaan arkaa marka in mobilka laftirkiisa aan ku xidhay internet. Sidoo kale waxaan ku xiriiriyay xarig charger oo computerka laftirkiisa uu ii sheegaya inaan geliyay mobil iyo noociisa. Waxaan sameynayaa marka back baan dhahayaa waa ka noqonayaa bartaasaan soo istaajinayaa mobilka. Imika wixii ka dambeeya maadaama internet aan ku xidhay mobilka iyo computerkaba xarigiina USB-giina sidoo kale aan geliyay. Shaqada ii hadhay waxaan ka dhamaystiri doonaa qaybta computerka. Isaga marka bartaan ayaan iska dhigayaa. Programkeennii ayaynu soo kicinaynaa ku qornaa sam fw ayaan soo furanayaa. Marka badhamada xaggan hoose iigu yaala waxaan ka isticmaalayaa markan kan dhexe ayaan ka isticmaalayaa oo remove frp ah. Kadib waxaan rabaa inaan dhaqdhaqaaqa qaybtan shaashadda aynu la socono. Hal mar ayaan ku dhufanayaa. Wuxuu bilaabay markiiba process ayuu bilaabayaa markiiba process ayuu bartan ka bilaabay. Kadib wuxuu tusayaa in mobilkan versionkiisa magaciisa wixiisoo dhan buu tusayaa. Xogta marka bartan wuxuu kugu sheegayaa in aad taabato intii aan hore soo aragnay xidig 4 gees 0 xidig 4 gees. Mobilka ayaa marka intaa ka fulinayaa aniga oo ku dhufanaya qaybta ku qoran tahay emergency call ayaan ku dhufanaya. Waxaan qorayaa xidig 4 gees 0 xidig 4 gees. Xogta marka uu galo marka aan intaa arko bartanan imanaya wax ku dhufanaya meesha ku qoran tahay already open test mode. Marka mar walba waan soo taabtay baan leeyahay intii aan sheegteen waan qoray. Okay baan leeyahay. Halkan wuxuu ka bilaabay marka enable adb meeshan socoto aad aragtaan ayuu shaqada ka bilaabayaa. Mobilkana markaas ayuu isna ka furayaa gmailka. Inaad kana la socoto kana aad la socoto. Marka halkan wuxuu ka soo qoray okay soo qoray waiting for device mobilka ayuu sugayaa. Mobilkana waa in aan ku dhufto allow. Halkan ayuu marka ka wada aragtaan removing oo ah in laga saarayo gmailka. Mobilkii oo aragtaan uu damay setting to markiiba galay automatically aanoo taaban. Shaqadiina halkan uu wataa uu damay markan. Okay mar haddii aad aragtaan dhaqdhaqaaqa noocan mobilkan oo soo daarmo USB-ga xariga waad ka saari kartaa uuna dhameeyay. Sidaas
ayuuna kaga jebiyey marka ciwaankii gmailka ahaa mobilkani. Marka shaqadan waxaa kuu qabanaya keliya maaha mobilka markaad ka jebinaysid inaad haysato softwareka la yidhaahdo Sam FW, sidoo kale waa in uu kuugu duwan yahay si aynu horey usoo aragnay casharadeenii kuwan ka horreeyay. Softwareka la yidhaahdo Samsung USB driver waa inuu isna kuugu duwan yahay markaad ku duubato Sam FW. sidaas ayuu marka shaqada ku dhameynayaa. Mobilkanina marka iminkan uu soo kacay, waana mobil markaa diyaar u ah in la isticmaalo oo waa uu ka furmay wax alaale wixii ku jiray, iminkana waa la adeegsan karaa. casharkan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah macalin Ibraahim Cismaan Cabdinuur. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.